kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkani waa janalka Cabdilaahi Khadar fadlan subscribe inoo saar janalka haddii aad ku cusub tahay oo riix gambaleelka yar si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena ugu dambeeyay waxaan maanta idin soo gudbin doonaa waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee wadanka Hindiya ama dhacdooyinadii la yaabka lahaa ee wadankaasi Hindiya ka dhacay isbuuca maanta ayaanu idin soo gudbin doonaa kuwa aadka u xiisaha badan ee laga soo warinayo wadankaasi Hindiya wararka la yaab kale waxay ka dhacaan meel kasta hase ahaatee kuwa ugu sii la yaabka badan ayaa marar qaar waxay kugu keenayaan in aad rumaysan weydo waxaana maanta idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah kuwaasi oo iyagu ah kuwa markaasi aad la yaabi doonto fadlan mar kale waxaan idinkugu celinayaa haddaad ku cusub tahay janalkani Cabdilaahi Khadar subscribe inoo saar si aad markaasi u rukumatana gambaleelka sii furo si markaasi muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan waxyaabaha ugu horeeya dhinaca dhacdooyinka wadanka Hindiya daanyeerayaasha ama daanyeeradu waxay markaasi sameeyaan basaska ayay kaxeeyaan kadibna waxay ku dhuftaan gawaari kale daanyeeradu waa kuwa markaasi cadow ku ah dadka wadanka Hindiya tusaale waxaan u soo qaadanaynaa daanyeer isagu markaasi xaday bas kadibna ku dhuftay gawaari kale ama basas kale oo goobta yaalay koor inta uusan kaxeeyihii ama wadihii darawalka ka ahaa gaarigani uusan la wareegin shukaanta sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah afhayeenada daanyeerka waxa uu inta badan ka yahay mid markaasi carqaladeeya basaska waliba xarun markaasi lagu xareeyo baska inta badan waxa uu sameeyaa gaariga ayuu galaa xilli isaga oo la hagaajinayo ama ay ku socoto howl ayuu inta galo uu shido uu kadibna kaxeeyaa taa waxay keenaysaa in dhibaatooyin ay u keento dadka iyo gawaarida goobta ku suganba kamaradaha CCTV-ga waxa ay qabteen daanyeer markaasi inta iska furay daaqada kadibna gudaha u galay baskii sidaasna markaasi ku kaxeeyay kadibna ku dhuftay basas kale oo goobta yaalay waa mid ka mid ah waxyaabaha la yaab kale ee wadanka Hindiya ka dhacay aanu ku xijino ri markaasi loo xiray cunid ay markaasi cuntay beer kadib beertaasi markii ay uga soo dhacday guri kale ridan ayaa lagu magacaabaa Pabli iyo sidoo kale shakhsigii iska lahaa ayaa la xiray kadib markii ay ridaasi cuntay beer uu lahaa nin markaasi dariskooda ah beerta ayay uga soo dhacday guri kale kadibna waxay ka cuntay ubaxyadii iyo qudaar markaa ka baxaysay rida iyo ninkii iska lahaaba waa la xiray hase ahaatee wax yar kadib ayaa la sii daayay dhacdooyinada kale ee la yaab kale wadanka Hindiya ka dhacay waxa weeyaan nin ayaa waxa uu toogtay kabaryeeri ka shaqeeya meel bara kadib markii kabaryeerigaasi uu diiday in uu cuno waxyaabaha dadku ay iska soo reebeen mid ka mid ah dhacdooyinada ugu la yaabka badan ee sheekooyinada baararka ayaa noqotay mid aan weligeed la maqlin nin ka yimid wadanka Hindiya sidoo kale magaalada Delhi ayaa isagu rasaas ku furay meel baar oo laga cunteeyo kadib markii mudarabkii ama kabaryeerigii uu diiday in uu cuno waxyaabaha dadku ay iska soo reebeen sheekadan ayaana waxa ay noqotay mid ka ugu la yaabka badan ardayda wadanka Hindiya waa la xiraa sidoo kale waa la saaraa marka ay daawadaan team cricket ah oo wadanka Pakistan iyo India sidaan wada ognahay waa kuwa markaasi cadow isku ah waa kuwa markaasi isnacib sidaas oo ay tahay India markasta waxay ku dadaashaa qaabkii ay markaa ay ardayda uga celin lahayd iyo dadka kaleba in taageero loo muujiyo teamka cricketka ee markaasi wadanka Pakistan tani waa dhacdo kale oo la yaab leh oo isla wadankaas waan filayaa dhacdooyinkaasi inaad ka wada hesheen fadlan haddaad nagu cusub tahay mar kale subscribe inoo saar dhinaca kalena markaasi riix gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena ugu dambe